kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal habeenimo Isniin soo galayso 23 bisha labaad ee February sanada 2020 qodobada aad caaba ku daawa doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah guriga la isugu geeyo dhalinyarada iyo waayeelada ee dalka Sweden muxuu yahay gurigaasi maxayse ka qabanayaan dadkaas markay isku yimaadaan barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad ku dhex daawa doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal hooyo American ah oo loo xiray kiiska caruurteedii oo si la yaab leh loo waayay intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waatahay daawadayaal markaana waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena qodobkeena ugu horeeyana waxa uu noqonayaa guriga la isugu geeyo dhalinyarada iyo waayeelada ee dalka Sweden dawladda hoose ee degmada Helsingborg ee dalka Sweden ayaa bilowday dadaalo lagu yareynayo dhibaatooyinka haysta dadka da'da ah kuwaas oo inta badan kaligood meel ku nool waa wax iska caadi ah in dadka ku nool dalalka reer galbeedka ay kaligood noolaadaan kadib marka ay dhameeyaan waxbarashada kalinimada waa dhibaato culays badan ku haysa dadka da'da iyo dhalinyarada hase yeeshee dawladda hoose ee Helsingborg ayaa dayactir ku sameysay dhismo aad u weyn halkaas oo ay dejiyeen dad dhalinyaro ah iyo kuwa da' si ay isu maaweeliyaan dhismaha ayaa waxaa hadda degan 70 qof gurigan ayaa dadka ku sugan waxay maalinkii kulmaan 2 saacadood waxayna ka sheekaystaan wax walba oo ay midka kale u sheegi karo cidlo ayaan dareemay markii aan kaligay noolaa 8 saacadood ayaan shaqeeyaa xaafadda ayaan dib ugu soo laabtaa markaan wax cunana ciyaaro ayaan isku mashquuliyaa ayay tiri Fia Stegrouth oo 20 jir ah kana mid ah dadka ku nool ismahaas haweeney da'deedu tahay 86 sano laguna magacaabo Ganal Eriksson kana mid ah dadka lagu maaweeliyo dhismahaas ayaa sheegtay in xanuuno dhanka maskaxda ah ay ka qaaday cidlada waxayna tiri waxaan haystay wax walba oo aan nolosha uga baahnaa balse cidlo ayaan dareemay waxay inta raacisay in ay jiraan maalmo aysan cidna la hadlin oo ay nolosha ku caajistay dawladda hoose ee magaalada Helsingborg ayaa sheegtay in arintan ay wax badan ka tari doonto xaaladda hadda taagan dadka da'da yar waxay firfircooni badan ku soo kordhin karaan kuwa da'da ah waxay ka sheekaysan karaan wax badan waxaana filaynaa in dadka da'da ah ay taariikh badan ku soo kordhin doonaan dadka dhalinyarada ah ayay tiri Daragana oo ka tirsan dawladda hoose ee Helsingborg sidoo kale dhalinyarada ayay sheegtay inay waayeelka ugu sheekayn karaan horumarada hadda ka jira dunida iyo sida ay u shaqayso tiknoolajiyada casriga ah fahamka dadka dhalinyarada iyo kuwa da'da ah ayay sheegtay in markii hore uu adkaa balse haatan ay aad isu soo fahmayaan qaar badan oo ka mid ahna ayba saaxiibeen dadka da'da ah ayaa dhalinta ka bartay waxyaabo badan oo ka mid ah isticmaalka aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo telefishinada casriga ah dhismaha ay dadkan ku kulmaan ayaa waxa uu leeyahay wax walba oo ay noloshu doonaysa sida meel qaxwada lagu karsado qolal fadhi ah meelo telefishino lagu daawado goobo lagu ciyaaro iyo goobo lagu jimicsado
dowladda Sweden ayaa sheegtay in arintan ay tahay tijaabo balse ay balaarin doonaan. waata daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysan qodobkeena kalena waxa uu noqonaya hooyo Amerikaan ah ayaa loo xiray kiiska caruurteedii oo si la yaab leh loo waayay. hooyo Amerikaan ah oo muddo bilooyin ah 2 canug oo yaryar oo ay dhashay lala ayaa waxa lagu xiray gobolka Hawaii xilli gudaha wadankaasi ay ku sii badanayso howlgalka baadigoobka caruurtaasi. Lori Dable oo ah 46 jir ayaa waxa ay gobolka Hawaii ka tagtay bishii November kadib markii booliska gobolka Idaho ay su'aalo ka weydiiyeen caruurteeda kuwaas oo ay askartu sheegayaan inay halis ku sugan yihiin. Lori Dable ayaa waxa la sheegay in la xiriiriyay koox diimeed sida ay ku waramayso warbaahinta Mareykanka. waxa ay wajahaysaa 2 dacwadood oo kala ah inay caruurteedii isaga tagtay iyo in jasiiradda Kauai looga haysto damaanad lacageed oo gaaraysa $5 milyan. haddaba waa tuma Lori Dable waxa ay u guurtay gobolka Idaho iyadoo ka timid gobolka Arizona dabayaaqadii bishii Agoosto kadib markii ninkii ay markaas wada joogeen Charles Vallow uu toogasho ku dilay walaalkeed Alex Cox ayaa waxa uu ku andacooday in markii uu ninka tooganayay uu isdifaacayay. ninkaas oo laf ahaantiisa sababo aan la ogeyn u dhintay bishii December. bishii November booliska ayaa waxa ay waceen awoowayaasha mid ka mid ah caruurteeda si ay u weydiiyaan in qoyska ay ku sugan yihiin gurigooda ku yaala magaalada Rexburg ee gobolka Idaho. saraakiisha ayaa sheegay in goor dambe ay ogaadeen in Joshua Vallow oo 7 jir ah iyo Tyler Ryan oo 17 jir ah aanan la arkin tan iyo bishii Sebtembar. mas'uuliyiinta ayaa sheegay in Dable ay jawaabo marin habaabin ah ka bixisay su'aalaha baariyaasha oo ay been cad ka sheegtay halka ay ku sugan yihiin iyo in ay jiraanba. waxa ay magaalada isaga tagtay maalintii xigtay. mas'uuliyiinta ayaa ka baaray bakhaar halkaas ka agdhow waxa ayna heleen dhar iyo waxyaabaha ay caruurta ku dheelaan kuwaas oo u muuqday inay caruurteeda leeyihiin. sida ku cad dukumentiyo furiin oo uu gudbiyay ninkii qabay haweeneydaasi ka hor inta uusan dhiman ayay Dable rumaysan tahay in alle uu u xil saaray inay ka shaqeyso imaanshiyaha labaad ee Ciise July 2020. sidoo kale inay ugu goondisay inay dilayso haddii uu arintaas ka hor istaago iyadoo ku andacootay inay haysato malaa'ig ka caawinaysa inay meelgeliso meydka. goodiga kadib waxa uu qaatay amar lagu ilaalinayo. waxaa sidaas muujiyay dukumentiga maxkamadda. waxa uu ku tilmaamay inay tahay qof khafiiftay oo mararka qaar aad ugu waalan habka dhimashada iyo riyooyinka ruuxiga ah. waxa uu sheegay inay diiday inay aragto dhaqaatiirta sababtoo ah waxa ay ogaanayaan inay tahay qof meel kale jiro. Dable ayaa bishii October dib u guursatay Jack Dable. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inay maxkamadda quursatay kadib markii ay soo xaadir weysay waqti kama dambays ah oo loo qabtay bishii Janaayo si ay caruurteeda ugu wareejiso mas'uuliyiinta iyo waliba inay carqaladeysay askari dambe baari iyo inay maxkamadda quursatay. waxa ay wajahaysaa ilaa iyo 14 sanadood oo xarig ah. waa haddii la xukumo waxa ayna sugaysaa in dib loogu celiyo gobolka Idaho. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.